Parts of speech. Hello everyone. casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay parts of speech, qaybaha hadalka. Hadalka waxaa loo qaybiyaa ilaa iyo 9 qaybood. Aynu ku baran doonaa casharkan. Noun, magac ayaa horeeya. Function, shaqada uu qabto. Example, tusaalaha. A noun, magacu is a name of a person. Magacu waa magac qof buu noqon karaa. Place, meel magaceed. Thing, shay magacii. Or idea ama fikrad magaceed. tusaale haddaynu eegno: dog, a school, house, guri. Example, Muhammad is a tennis player. Muhammad waa ciyaartoy tenniska ciyaara. Pronoun, a pronoun is used in a place. Waxa loo isticmaala pronoun amba magacyaalka used in a place of a noun. Waxa loo isticmaala halkii magaca laga isticmaali lahaa ayaa la isticmaalaa. In a sentence, sentence-ka pronoun-ku may take wuxuu qaadan karaa place of meeshii place of person, meeshii qofka ayuu qaadan karaa. Place, meel magaceed. Or ama thing, shay. tusaale, he waa pronoun magacuyaal, wuxuu yaalaa halkii isaga qofka magaciisa aynu isticmaali lahayn. waxaan isticmaalanaa he, that, who iyo who. Ali is not at work. Ali shaqada ma joogo. Ali isn't at work this week. Usbuucan, he is gone on holiday. Holiday ayuu aaday, ma fasax ayuu aaday. Verb, ficil. A verb, ficilku verb can tell wuxuu inoo sheegayaa what action ficilka uu sameeyo someone qof or something ama shay is doing uu qabanayo. ficilka uu sameynayo wuxuu cunay, uu socday, uu seexday. A verb can also express, ficilku waxa kale oo inoo run, promise, love. orod, balqaadid, love, jeclaansho. Let's sing, aynu heesno the last song again, heestii ugu dambeysay mar labaad.
a verb baynu nuna ficilku verb can also express wuxuu inoo sharaxayaa ama inoo muujinayaa state of being xaaladda ahaanshiyo. waxaa inoo xiga adjective oo ah sife. an adjectiveku describes waxa uu qeexaa a noun magac or a pronoun ama magacuyaal. waxaa ka mid ah adjectiveska sifayaasha big, weyn, brave geesi, good fiican, what beautiful flower waa maxay ubaxa quruxda badan leh. adverbka ama falkaabaha describes wuxuu qeexaa a verb ficilka ayuu wax ka sheegaa. an adjective ama an adjective or another adverb ama adverb kale. tusaalayaasha maxaa ka mid ah badly xun, never marnaba, almost ku dhawaad, he run wuu orday, he isagu wuu orday, run quickly to the building waxa wuu orday dhinaca dhismaha si dhaqso ah. article maxay noogu xiga article. an article is a articleku waa word erey used to loo isticmaalo to limit a noun. a word waa word used ama erey used to limit a noun in lagu xadido magac or ama make it definite ama uu ka dhigo mid macrifa mid la isla yaqaan. tusaale ahaan a waxaa ka mid tusaalayaashana articleska a and the. a rapid tusaalayno ah bakayle. a rapid bakayle hal bakaylo inoo sheegayaa. a rapid bakayle waa hal bakayle. preposition a preposition combines with a noun. preposition wuxuu isku daraa with a noun or a pronoun. waxaa tusaale u ah above, kor, at, from, ka. there is a light waxaa jira light on the table miiska dushiisa. to form si uu sameeyo wuxuu ka magacaabayaa isku geeyaa prepositionku phrase jumlad that tells taasoo waxay nooga sheegtaa something about another word erey kale in a sentence ee sentenceka.
conjunction a conjunction joins together wuxuu isku keenaa conjunctionku a single word erey kaliya or a group of words ama koox erayaa in a sentence-ka dhexdiisa. He looks so proud because he won the competition. waxaa ka mid a conjunctions ama xiriiriyaasha and because or etc iyo wax lamid ah. He looks so proud waxa uu egyahay mid hanweyn because he won wuxuu ku guuleystay the competition tartankii. Interjection a interjection expresses wuxuu inoo muujiyaa a strong feeling dareen xoogan or emotion ama xaalad emotion ahaan. An interjectionku can be a single word wuxuu noqon karaa erey kaliya or a phrase ama jumlad. waxaa ka mid a hurray, gosh, hurray, I have already graduated. fadlan habeen inaad subscribe saarto si aad noo dhiirigeliso na sameyno videoyo tayo leh oo